السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إله نقدك كوها نوصن دادكنا هنوريا دمان دادكا سوماليا دي برنامجك قفاعو كداوانا يا سومالي كنديان تي في كندا جيسانا يا راديو بورمي CKMS 102.7 FM برنامجك قفاعو مانتا لايف وحيدين كايمانا يا إذا عدا CKMS 102.7 FM راديو بورمي annaga oo barnaamijka maanta khamiista uu yahay barnaamij aan ugu talagalay waxa aan idin soo gudbinaynaa waxa ka dhacay magaalada Saylac maanta ay bishu tahay October 2025 waxa aan dadka Soomaaliyeed la wadaagaynaa bal waxa aad la daawataan hadaladii uqaasha beesha Gadabuusi ee ka hadlay Saylac ku soo dhawaada barnaamijka inaan ka hadalno wax badan dhigahayaga ku dhacayay بلا آذن كو أركيي لدقي سنيي والله حشون اللهين والله يسخبنا اللهين ومد مرجع يكال الدنباين لأنو ملاييني فانساو قاطي ضد كعب صونية دالمدي والحيرون ويدي دقم ولاقي الله والحيرون ويدي درسنimadi wad xeerin weyday mid garku cadaaday iyo mid dhalinyaro ah iyo mid aqoon-yahana warkaagu wuxuu noqday Gadabuusi hadduu 24 saac ku guuri waayo balaayaan samaynayaa ummadda islaamka anaale waxna kama qabsatid maxaad qabsataa maanta laga bilaabo badiyo bariba doonyihii baa jooga badda dhexdeeda adeer doonyihii oo cihubaysan iyo aniga badda ii dhex jooga haddaad moodaysa inaan berriga un kaala dagaalamayo badiyo berriba waan kaala dagaalamay adaa gaadhsiiyey adaa ku baaqay siidhiga adaa afuuf waxaa kaloo sheegayaa badha saabka halkan lagu sheegay nabadoonka ee caaqilka ah dowladda Somaliland iyadaa keentay dib dambe ugama dul qaadanayno caaqil badha saab laga soo dhigo waxaan idin yidhi abtiyaal war horta sidaan usoo kala horeynay isweydiiyaan maalintii horeyna maataan idin sheegaya sidaan usoo kala horeyn dhulka kuuguma imane waad iigu timid abti waad iigu timid halka barnaamijka aad ka daawanaysaani waa Somali Current TV kana dhageysanaysaan radio Boorami dadka barnaamijka meel walba ka daawanaya waxa hadlay uqaasha beesha Gadabuusi waxa jooga dhalinyar rag iyo dumar dibadda iyo meel walba ka tagay magaalada Saylac waxa laga hadlayana waxay tahay xeerka beesha Ciise in lagu qabto waxaan maalin dhaweyd ka hadlay oo aan idhi kelmadda dulmi la yiraahdo waxa ay leedahay laba macno xadgudub iyo qadar waxa aan sheegay in deegaanka dadku wada degan yahay wanaagsanna xeerka Ciise in laga bilaabo magaalooyinka Hargeysa Boorame Muqdisho Dirdaba Jigjiga dabadeedna Saylac laakiin Saylac aan ka bilaabaynaa waxa ay keentay oo waliba rag leeyahay iyadoo loo ogol yahay la wada degan yahay haddana idinku ma deganin in dhibaatadaasi dhacayso cid walbana way ogay waxa dhaawacan 2 qof 4 qof 2 Ciise iyo 2 Gadabuusiya waxa saaka iyada oo barnaamijkan la bilaabayo laga hadlayo soo waxay ardaydii iskuulka boardingka ku jirtay dabadeed shiiday dadkii dabadeed kuwii kalena way shiideen ciidamada Somaliland oo kala dhex galay oo la imika gacanta ku haya nabadgelyada magaalada iyo dadkii magaalada deganaa oo iyaguna in badan kacay iyo shacabkii waxay keentay dadkii magaalada Saylac u sheeganayay dadku in nabadgelyadoodu khatar ay gasho oo la ilaaliyo iyadoo deegaanka dadka ku badan ay cid walba og tahay aan ummadda Soomaaliyeed la wadaagayno in had iyo jeer la iska ilaaliyo waxyaalaha dadka fidnada u keenaya kelmadda fidnana waxay ka dhalataa wax la necab yahay waxa aan dadka Soomaaliyeed la wadaagayaa waxa aad nala daawataan gudoomiyihii gobolka Salal oo ka warramayo ku dardaarmaya gudoomiyaha hadda oo maanta arinta dhacday loo haysto nabadgelyo darrada awgeed iyo khilaafka oo soo noqnoqday dhibaatooyin ka dhacay ayaa wuxuu kula dardaarmayaa gudoomiyihii gobolka waxaan kaaga tagay dad midaysan dad ehela dad xigaala
inaan iyo abtigii bal nala daawada barnaamijka gufaaco halka barnaamijka aad ka daawanaysaan waa Somali Crane TV waxa aan dadka la wadaagaynaa waxa kaloo bishan 9keega iyadna tagi doona Saylac ugaaska guud ee beesha Gadabuursi waxa aan dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan kula dardaarmaynaa Soomaali dhul iyo degaan ma kala leh laakiin waxa aan wanaagsanayn dan degan inaad tira adigu ma deganida aniga degan aniga taariikhdayda ay tahay taaweeye dadku diidan yahay halka barnaamijka aad ka daawanaysaan waa Somali Crane TV kana dhageysanaysaan Radio Borame CKMS 102.7 FM wixii gadaal ka soo gudboonaada arrinta iyada iyo wixii kalaba waxaynu maqli doonaa barnaamijyadeena kale ee Somali Crane TV Radio Borame wanigoo Xaamud Suldaan Cali Cilmi Suldaan